بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد السلام حاج إسماعيل maanta waxaan doonayaa halka aan ka siiyo shacabka Soomaaliyeed shacabka SSC shacabka Somaliland shacabka beelaha hawiye aan iraahdo shacabka Puntland intaas oo dhan way dananayaan in aan ka hadlo dagaalka laascaanood ama sool Somaliland waxa soo galiyay Somaliland waxa soo galiyay afar wadaad oo beesha hawiye ka soo jeeda gaar ahaan beesha hiraab oo 1996 September markii ay qabsatay mataqaana dawladda Ethiopia iyadoo itixaad la dagaalamaysa ay gada ay qabsatay oo soo cararay xasan daahir aweysyo gobolka kale oo cararay laakiin afar wadaad halkaas oo cararay mataqaana si kadis hadii luuq qabsaday oo moogtahay bay laascaanood bay tageen maartay nimanka khabaaraadka Ethiopia waxay ogaadeen wadaadadii qaar inay laascaanood tageen way dad baa u shaqeeyay dad Soomaaliya u shaqeynayay marka xitaa magacyadoodii bay haysteen liiskoodii bay haysteen afartaa wadaad laascaanood bay tageen la soo qabtaa laascaanood markii la hadleen waxay yiraahdeen waru kaadiya warana kun Soomaaliya idin dhiibi mayno markaas la yiri hal wada hadlaalay laba garaad oo mataqaana Allahu naxariisto garaad Abshir Saalax guddiga gobolka Banaadir baan Abshir Saalax ka wada tirsanaa jiray 81 saddexdaas sano taliyaha gobolka Banaadir buu ahaa guddiga kormeerka gobolka Banaadir baan marka inaan saaxiib ahayn baa garaadkaas Allahu naxariisto kormeerka markaa aha iyo garaad Cabdirsaaq garaad Soofe garaad Cabdullaahi garaad Soofe oo isaguna ahaa afar isaga walaaladiisa aabaha quraanka soo baray tuulo loo oran jiray xarane tuulo loo oran jiray Muuse Qudeer oo Ingiriisku uu dumiyay kontonaadkii marka waxay labadaas garaad baa tagay wasaaradda arrimaha gudaha waxay u tageen arrimaha gudaha Itoobiya u tageen waxa la hadlay oo iyaga marti qaaday oo isugu yeeray federaalka xildhibaan ugu jiray oo mataqaana ka soo galay xagga hawdka marqaan ama hawdka buuhoodle federaalka Itoobiya ka soo galay baa isugu yeeray Cabdi Ismaaciil Dhiblaayo ahaa wali waa nool yahay Allah xafido marka isagana wasaaradda arrimaha gudaha marka waxay yiraahdeen nimankan Ethiopia dagaal kuma soo qaadayaan abaabul kuma sameynayaan wax kale kama sameynayaan anaka ka mas'uula anakuna idin ma dhiibi karo qof Soomaali ah no matter hawiye ahad saaqaad meesha raba ka yimaado idin ma dhiibi karo dawladda Ethiopia marka waxay mataqaan ku qalcaday oo ay tiraadeen marka amaka xuduudada ilaashanay yiraahdeen marka ciidan baan idin qoranaa baa 1600 ciidan baan idin qoraynaa hubka anaka siinayna iyo rasaasta anaka qoriga rasaasta anaka siinayna anaka dareeska anaka siinayna lacag siinayna laakiin dry food baan siinayna bariis baasto saliid bur waxaan siinayna bishii marqaan baan keenayna dadkaasna weynaha dadka hawdiga deena xuduudda Soomaaliya Ethiopia degan weyna dadkaas ahaadaan oo mataqaana weyna naga ilaaliyaan xuduudda asaas ay ahayd arrintii halka maraysa waa 1997 kiiba 98 kii waxa bilaabmayba 98 kii waxa bilaabmay la dhisayba Puntland baa la dhisay Cabdullaahi Yuusuf baa mataqaana maarkay ciidankii soo kaxaystayba ciidankii uu soo kaxaystay marka horta sidaas ay taasi ay ku bilaabatay marka muddadaas 1996 kii ilaa 2006 kii markii maxaakiimta xamar laga saaray waa 10 sanadood 10 sanadood afarta wadaad ee hiraab waxay joogeen laascaanood dhulbaanta ku hagoogtay imisa u dhimato dhulbaanta inta hadda iska dayn lahaayeen oo sida hargeysa iska dhiibi lahaayeen maartay ninka ogaadeen loo arkaba sida loo aga yiraahdaba suuqa laga qaban jiray oo maartay Ethiopia loo dhiibi jiray waa oo nalaf hadda oo nalaf baa aga u muuyir marka dhulbaanta way ku hagoogtay afartii wadaad ee hawiye ee hiraab aan idhaahdo intaas laga dilay intaas markii mataqaana laga saaray oo Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne noqday oo xamar la keenay oo maxaakiimtii laga saaray oo 2006 December 28 ay tahay baawatii xamar ay yimaadeen Puntland baa loo dhacay Muuse Allah naxariisto loo yeeray hadda iskaga baxay intii hore Adam Muuse markaas keenay buu nimanka kama qaban dagaal shacbi ay noqonayso iska hor imaan hadda idinka idin diiday anaka na siinayeen Adam Muuse nin aad u qiimo badan buu runtii mowqif adag buu iska tagay arrintaas laakiin markii dambe waa lagu khasbay waa ku khasbanaaday gabray ciidankiisa hadda waa inaad ka baxdaan baa leeyahay Soomaaliland baa hadda gal afarta wadaad noo soo qabtay horta Soomaaliland aanu sheegay shacabka Soomaaliland ee idinka dhintay boqol baa la idinka hayaa boqolaal baa idinka dhimatay 32 sanad madax banaaniya aqoonsi raadinayseen ciidankaad inta dhisayeen waxaad u baaba'een dhaqaalihiina wuxuu u baaba'ay subcadiina wuxuu u baaba'ay waxa hadda musabbixu hadda Xasan Sheekh soo hor fadhiisay isaga caalami waxba lahayn oo loo daatay oo la leeyahay mataqaana Soomaaliya de maartay aad kamid tahay la yiri maxaa gaarsiiyay dagaalkaasna maxaa u keenay de afar wadaad soo qabaalay afartii wadaad ma xoolo markii waa ka carareen markii meeshu ka baxan way ka carareen marka waxaan doonayaa in shacabka Soomaaliland ay ogaadaan waxa ay u baaba'een madana Soomaaliland bay ahayd ma afarta wadaad soo qabtaa la yiri
maanta musabix waa inay iska eriyaan tallaabo adag waa inay ka qaadaan shacabka SSC waxaan u sheegayaa runtii dadaal badan bay sameeyeen juhdi badan bay gelin magac Soomaaliyeed oo fiican bay sameeyeen dad Soomaaliyeed oo wadaad Soomaaliyeed waliba nin wadaad ah oo cadow raadinayo inay ku hagoogtaan laakiin uu baabeen lascaanood wixii soo gaaray dhulbaxanta wixii soo gaaray afarta wadaad dartood bay ku soo gaartay beelaha way hadda maxaan u jeedinayaa war madaxda beelaha way dawladdu waa hiraab madaxweynuhu waa hiraab inta la shaqaysta dhan waa hiraab waxa dhan wasiirka arrimaha waa hiraab waxaan dhan waa hiraab war afar wadaad oo hiraab baa dhibaatadaas u gaadhay idinkuna xitaa waxaad awoodi weydeen inaad tirahdaan idinkoo safiir Ingiriis ka baqaya waxaad inaad tirahdaan maamul baan idin aqoonsanina bad ka warwareegtay waxa ka warwareegtay maamul baan idin aqoonsanina waxaad ka warwareegteen in waxay xaq u lahaayeen inay helaan dhaqaale xaq u lahaayeen inay helaan waxaad ka warwareegteen intii xabadu ku dhacaysay inaad ka hadashaan oo adduunkii oo ka hadlay yuunkii oo ka hadlay waa la amsay prime minister kishibu iska yir biiska hoos ka galay nin in adeerkiisa oo khayr Allah siiyo wasiir ahaan jiray martay wasiir ahaan jiray basi xun ula hadlay oo yiri waa kursiis waa siyaagay buu yiri waa cilmooga ninka la waa nin goba weey waa in adeerkii wuxuu waradiga prime minister magacooda prime minister ku tahay waxa la sameynaya gaalo oo dhan baa isugu tagtay inaad ka hadasho weey kamuusan hadlin sababtoo ah dadka la keenay buu kamid yahay sayid madaxweyne waxa weeyaan safiirada ajnabiga waxa ay ogolaanin inaba kama hadli karaya marka waxa arinta ka hadlay niman Soomaaliyeed oo beesha hawiya waxa ka cali baa kamid ah nin goba si aan inaba caadi ahayn buu ka hadlay uu la jiray waxa ka hadlay عبد النور سياد هبل عبد النور سياد نانيس باي ددku badana u yaqaan naanis qofku haduu sarraal ka yahay sunuhu ma in loo yeero Cabdiwaal bay u yaqaanaan waa ka raali gelinaya waa nin abtigay dhiman cayra gabadh cayra ay dhashay waa ka raali gelinaya horta marka wuu ka hadlay isaga ka hadlay dagaalkan xaq waa baadil dadka kan calanka wata oo gurigoodii jooga oo loogi muusan ogaan haduu ogaan lahaa afarta wadaad inay hiraab ahaan lahayd wuu ka hadli lahaa Cabdi Axmed Nuur iyo Cali Yar way ka hadli lahaayeen iyo Cabdullaahi Balwani way ka hadli lahaayeen waxa kale oo intaas dhan kama sii sareeyay madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle macay Yuusuf Dabageed waa nin xawaala waa nin reer beelada xawaala wuxuu yiri dagaalka waanu galaynaa buu yiri waanu galaynaa maxay magaca xawaalan ku galaynaa minis waxa weeye nin qofka calanka sita gabdhaha yaryar calanka sita wiilash yaryar calanka Soomaaliya barnaamijaya xabada nool oo waliba madaafiic ka dhacay lala dhacay dagaalkan ka qayb galanaa hada nasiibuna markii waa tii maartay caruur yar ay ku heeseen oo maartay la soo gabagabeeyay marka waxa weeyaan shacabka beesha hawiya beesha hiraab waxaan sheegaynaa waxa weeyaan horta masiirkii afar wadaad oo idinka baa waxaas dhibaatadaas dadka u gaadhay taariikh bay idin noqonaysaa waag baa laga qori doontaa taariikh bay noqon doontaa in badan way ka hadleen shacabka habargida way ka hadleen xawaad la ka hadlay abgaal ba aad uga hadlay shacabka abgaal aad bay uga hadleen runtii laakiin waa shacab ahaan laakiin madaxweynaha iyo inta la shaqeynayay inta ku hareereysanayo dadka kale uu wakiilada u magacaawday ma taqaan maxaa dhahay wasaaradda walba wakiil buu geystay oo maartay isku xafad yihiin buu geystay oo wasiirka dhab si looga takhalusaba marka waxa weeyaan waxa soo dhan maartay waxay u dhaceen dagaalka la saxano sababtu u dhacay waxay ahayd ma taqaanaa basiirka niman hawiya oo hiraaba bay ahayd musabixina maxaa lagu heshiisay 2002 alifkii London one markii la isugu yimid baa la yiri madaxa loo soo Ingiriiska wax wata moogta waxa la yiri intii Ingiriisku xukumi jiray baad lahaanaysaa way markii badii waa la wada siiyay nimankii dhulkii lama siin khayraadka dhulkii lama siin khayraadka Soomaaliyeena waxa ugu muhiimsan meesha la yiraahdo hol baa ugu muhiimsan 1997kii samarkii 1997kii dawladda oo jirta baa wafdi aan kamid ahaa waxaan hogaaminay wasiirka shaqada arrimaha bulshada waa Miraaq Weer Allah u naxariisto reer Garowe ahaa baan hogaaminay arrin shaqo bixin bay arrin exploration mine arrin shaqo bixin bay ahayd waxaana la socday maarayihii guud Konoko marka holool iyo ayl marka haysatay dhibaato halkay ka timid waa arrin shaqo bixin bay ka timid maarayihii guud Mareykanna la socday waxa kale oo la socday maarayihii guud geostrophysics ee Mareykanna iyaduna waa qolada daahtada hoose baarisa ee subcontractiga haysata iyo regulator oo badqana reersool ah waa 1997kii waa samarkii July August meelaha waa maxaa waxaas ay ahayd waxa weeyaan arrin shaqo bixin bay arrin markaas ay soo ogaaday hol oo noo sheegay general manageradii shaqada ku lahaa ay noo sheegeen ilaa inta ugu badan in ay tahay mataqaanaa dhulka Soomaaliya khayraadka meesha ugu badan yahay marka hadda dhulkii baa loo soo dhigtay dhulkii waxa la yiri musabix baa la aaday adigu saxiix laakiin iyo kaale oo dadka janaal iyo maartay shirkad kale oo Imaaraat ku leeyahay iyo saddex shirkadood oo loo maray mid Norwegian mid Imaaraadka mid Mareykanka saddex shirkadood baa la siiyay musabix oo si la yiri waa Imaaraadka iyo Norway isla shaqeynayaan waxay u shaqeynayaan Ingiriis u shaqeynayaan marka musabix saxiix qalin ku bilaayay 25 milyan inuu ka qaato wuxuu kuma lahaba marka ujeedada isaga intii ka dambeysay maadaama afartii wadaad iyo kiiskooda waa dhamaaday
kiisas close way raggan way tageen lama bahayo mar haddaan lahayn waa in kaartada wax kale loo bedelaa waxaa la yidhaha adigu ilaa intii ingiriisku haysan jira baad leedahay marka shacabka Soomaaliya marka waxaad ka maqashaan iyo koole dhulka ingiriiska xuduudda soo xidhna dhulka war maskax isticmaala warshidaalka kan oo ingiriiska iyo imaaraadka iyo mataqaana Norwegian la siiyay way waxa meesha loo socdo dadkiina waa ku dhamaaday 30 sano baad soo halgamayseen badaxjimada raadinayseen cirya dhul soo taabateen adduunka meeleeda taagan male maanta ziira taagantiin حدا تاجد دول كان ما أنت تعلم وكاسد وزير كهرباء جودها وحلا صحيحنا وزير كهرباء جودها الصومالي وكوا وحلا هير كاسد ما أنت زوج جاري بركوا حوالي سمعتني لقاليني ماملكيني عيدا كيني شعب كيني وحول وتكون بابادي بركوا حوالي طلاب هذا كقطان حتى وحلا يدسوه بيجي إلا أمرت قريل لقد وحدود إثيوبيا إلا عرقابة ما أمرت قبائل كانوا منطقة حدود السلاح برجعوا كلا لا يري هم قاطع ولا ضيعلمه ومرك إذا كل الجميع هم كي مرت اللي رقاته ورسيدهم ما يكونوا وشبايا ورحمرش على والله كل شيء قيسين وهذا وحق والدولة دي لما هم مع بعض مركا تحسنا نصيحة ده سمو سمينا يا مارتين من كمارت قنا باشا إساق باشا حساق مرة هذا صار هنا الشيطان مرة أورما الشيطان مرة إرسال الشيطان مرة والله مشغول حمر بكسع العقد ما لهم بحياة واحد شيء ما هو فين العقد ما لهم بحنا ضد كيما مارتلو كلا تشمينيا وحاسون فيلا الصومالية كسعودة وأنا خرج ما نكسعودة مركا تقالكاس sidaas buu ku socdaa xasan sheekh iyo beesha hiraab madaxda dhan waxaan arintan idinka hortaala dadkini taariikh xun ay idin tahay dadkina way wax dadkaas u baabay marka intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iskuulada Horizon waxa ay kamid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose mid ka dhaxeeya iyo laba kuwa sare waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuuro ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha kollejka ka hor inta aan aadin kollejka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada kollejka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada kollejka waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus